daawadayaal ku soo dhawaada idaacadda codka Soomaaliyeed waa barnaamijkii aan shaandhaysnayn aynu shiili jirnay oo daawaha ka soo degay barnaamijka waxaanu ku kor istaagaynaa arrintii warmurtiyeedkii ka soo baxay dowladda Djibouti iyo waxyaabaha ku hoos qarsoon oo aan hore uga soo hadalnay laakiin xaqaa'iqii mariba ay mid inoo soo baxayso horaan Soomaaliyeed oo gabiyo u yidhi haddaan taladu cashada eegtay cidina yeelaynin ceeb weeye xoorow qoom soo calaacalee waxa weeye nimankan dictatorshipka ah ee Muuse Biixi wadankan uu xaraashtay uuna iibsaday dana shakhsi ah ayaanu u iibsaday mucaaradka nimanka la yiraahdaana waa political dead end waa hadduu sii go'ay mahmaadii Soomaaliyeed ayay marayaan عربت مركي ومهما يعني نمك اللي يراهدو قفك وحما قرطة أما دوقك هذا ما يعرف رئيس الحمار من ذيله تمارك الدبدي سياف كيس مكلا يقانو وحنارك حسب كان معارض أما لما حسب معارض خاصة حسب وطني أوله السجا أيام مسؤول وطن كمالته Djibouti عادي أرنت سوى جف بيكوتايش ومدة دجان كارهر وغويجا وحلا على مرة وحلا هاي انقلاب بكوي مرة مسؤول كماها يجا أيات دبر وها أو أي هيد أنا هاي كقبطان أرنت نمكانو نوا كشكاش كي كوري أرنت أنت نانجلين ورمتيتك أما كومنيكيجا مسؤولية معارضكو وإنا يقبطان مركا أي أركان إنه وطن كدنا شخصية أو ريرة أو حراشنا يو waayo waxa mucaaradka ay naqaano ee dhabtaahi waxa weeye mikrofoonka ummadda wadanka joogta ay ka hadasho tan garanahayn waxaanu leenahay bal wadamada caalamka ee kale ay waxaan dimuqraadiyadda lagu sheegay muxallalka ah ay ka jirto eega hore loo yiri riya aamusay reerkoodii gabe waxa kale oo taariikhdu ay dib u xusuusanaysaa xisbiga wadani maalintii la iibinayay meesha la yiraahdo dekada berbera laftiisa inay qayb ka ahaayeen muxallalka siyaasadeed way meesha dhuxur ordayeen markii dambana ay cadaatay inaan meesha wax baarlamaanka ka jirin xisbina aanu ka jirin ummadana aanay soo kicinin oo aanay u sheegin khatarta ay leedahay tanteedii ayaynu maanta haynaa waxaan arkayay iyadoo la leeyahay baarlamaanka hal la geeyay heshiiska horta maxay ka nuugtaa maxay ku nuugtaa meesha baarlamaanku jirin way og yihiin xisbiga wadani marka ay ka daayaan ummadda maaweelada hana sheegaan halka looga dhaqaaqaya inay tahay kacdoon shacbi haddii kale waxay noqonaysaa heelo ama hees midbakii aynu riixno baaqa uu soo saaray xisbiga kulmiye maalintii dhaweyto ay ka hadlayeen arrinta communique-ga ama warmutiyeedka Djibouti waxa iska uunmay ahayn wax cilmi iyo aqli midna ku dhisan waayo way arkaan in ummadda la khiyaameeyay cidlana loola dhaqaaqay lacagna la soo siistay shakhsi iyo reer oo heegaysan waxaan maqlayay oo kamid ahaa arrimaha ay ku tiraabayeen waxaan ummadda gaarsiinaynaa ummaddu idinka ayay idii xil saaratay inaad qabataan una yeedhaan markaa u baahataan si loo hor istaago dabayshan inugu soo dhacaysa ee siyaasadeed ee bilaajihada waxaa kaloo hadalka ka maqlayay baarlamaanku ha joojiyaan war baarlamaanku kii dekadaha iyo iskuulada iyo dadka iyo caruurta iyo ummadii la dhiibayay iibsaday miyaanu ahayn aad dhex fadhideen ama markhaatiga ka haydeen كدايا لقوية ومدة أكو هيسان شربيلات إنا كودا واقدان بحق ولادهين والدستور كو إدي سينيا وايوي محمام الأخ وميشن كتشرا ما أجرتو ما أنت برعد لو وريغيسا شوانا مران أيا وريغيا دمان خيارها قدامي تيسوجي بادان أما قبائلكو إنا دنتو ذا كتشدان يوحي متري لها ما دام ماشي أي نقطي فدرال حراش يالا تا إنا ugu ومدة أيا هيد يوحنا قاعنتا نوغو مجرانا ay cadeeyaan aynu kor istaagno imikana qodobadii mid warmurtiyeedka ama communique-ga Djibouti ka soo baxay aan ku bilaabo hadalkii wasiirka arrimaha dibadda ee Heegalanka ninka la yiraahdo Faraton waxa uu yiri khadda matbaci af Carabi ayuu ku sheegay khalkhalkii waxa weeye nin baa si khaldan wax u qoray sheekadaasi waa sheekada marfashiyada la isaga sheekeeyo wax maamul sheegta ama dawlad sheegta wax uu qof bani aadan la soo hor fadhiisto waa wax laga yaqiiqsoodo arrintaasi sideedaba hore Soomaalidu tiri sakaaro saala la arkayo ayaa aas-aastaa meel marka ay ku wada gelayaan laba dhinac shir ama wada tashi ama garnaqsi saddexda kay doontaba ahaatee caalamka waxa koobaad ee la sameeyaa waxa weeye waa la copy gareeyaa communique-ga ama warmutiyeedka tirada ayaana la eegaa labada dhinac ee wada fadhiya halka marka uu ku dhamaado ayaa mid walba copy-giisa la siiyaa ama wixii laga dheegtay
midna meediyaha ayaa loo soo ama warbaahinta ayaa la siiyaa midna meesha lagu qabanayo madasha ama dowladda ayaa loo reebaa oo arkiifiyada ayaa la dhigaa kadibna waa la saxeexaa markaa wax la saxeexay oo 4 qaybood loo qaybiyay in 3 cisho ama 4 cisho kadib la hambaabiro oo marna adna la inoo soo kiciyo marna ninkii cawile ambassadorka sheegan jiray la inoo soo kiciyo marna faratoon ugu yaado waa khata tabiici waxaad arkaysaa inay tahay wadadii hore ee la mariyay dekadii in iminkana la ina marinayo hore loo yiri fallaari gilgilasho kaaga ma hadho adna iyo muuse iyo ninka la yiraahdo faratoon gaal sulub saacin saad ali shire iyo ninka la yiraahdo ambassadorka ee fadhiya Djibouti intuba waxay moodayaan umadu inay tahay sidii dad waalan oo wax alaale iyo wixii la doono loogu sheekayn karayo waxaan ku leenahay war dadka maaweelada ka daaya umadani way ka soo daashay intiinaaba maanta 6 jirka inanka yar 6 jirka aabana idiga aqli badan idigana cilmi badan idigana war badan caalamkana waa caalam casri ah oo meel walba la idiga soo eegayo oo la idin la socdo idina xaraash maayo cid aan mateeshaan ku xaraashi kartaana maanta ma jirto arinta kale sharciyan khaladka waxa weeye dowladda dhexdhexaadinaysa iyadu communique ba xaq uma leh inay soo saarto waxayadu xaq u leedahay in madasha fadhido koobiga la siiyo ee labada wax ay ku heshiiyeen ay qaadato arkiifyadana dhigto waayo waa marxaati hadii hadhow loo baahdo ay ka soo saarto laakiin iyadii 3 cisho ka bacdi communique ugu soo saarto waa xaraash iyo xoolo jaban arinta warbaahinta iyanu wali ku dhex jirnaa arinta warmurtiyeedka ama communiquega cusub ee ugu soo baxay ee kii ay ajeedaha hore kaga soo hadalay ee xaraash iyo xoolo jaban ama timir xabaal taala oo ninkaas rabay isaga family-giisu ama heega laantu ay meesha ka baahay mushtirto in dhaqaalaha federaalku ay maamusho maamul goboleedka heegana dhaqaalaha ay wax ka soo gaadhaan waa arin pure oo cad waa sida Puntland iyo kuwa kale ee maamul goboleedyada ay federaalku wax ugu maamusho taas marka muxallalkeedii dadka looma sheegi karahaynin waayo dad kale tagaya dhaqaalena isma weydiistaan isdhexgal lama weydiistaan qodobka koobaad markii la isugu yeedhayay islaamaha meesha islaamihii hanti wadaaga kacaanka Soomaaliyeed afka kamaamada lagaga soo xiray ee heegeysna ee mushahaariga ee meesha isla gaariga dusha ka saaraa sidii nin boxing soo badiyay oo Mike Tyson soo dilay magaalada gacmaha dhexdeeda taagtaagayay caruurtuna hareerayaacay heegada ee mushahaariga arinta waxa lagu dambabasayay communiquega in la ogaado way mar walba waa in turbaan been dadka loo garaaca sababtaas ayaana dib communiquega loogu dhigayay in ay dadku ay dib ay u calaashanin oo aanay fahmin waxa meesha ka soo baxay horay Soomaalidu tirwaay dadka meesha jooga waxba la iskaga tirin maayo qaar la laayay iyo qaar la xidhxidhay iyo qaar loo hanjabayba ninkii hooyadii guursadaaba waa adeerkay halka ay meeshu maraysa waa halka marka waxaan ku leenahay kuwa meesha jooga ee mucaaradka sheeganaya mar labaad umada 30 sanadood oo heegan labaad oo federaal oo qarsoon ha ku sharciyeynina qodobka labaad hawada aan u gudbo wadan caalamka ku yaala oo hawadiisa wadan kale maamulo sharciyan maba jirto waayo hawada iyo dhulka iyo baddu waa isku sharci wadan waliba saddexda ayaa lagu gartaa inuu yahay wadan xora sida uu gacanta ugu haysto xagga sarena federaalka noo maamulaya federaalku muxuu dawladda Kenya xagga sare ugu maamuli waayay federaalku muxuu dawladda Djibouti ay fadhiyeen dictatorku ka taliyo oo xagga sare ugu maamuli waayay federaalku muxuu dawladda Kenya xagga sare ugu maamuli waayay maamul goboleedkii oo toos ayaa la soo qaatay oo ay matalayaan dadkii tirada yaraa ee deganaa magaalada Hargeysa qaybta kala jeexan iyo gobolka Cagaagan taasina waa qodobka labaad ee idii cadeynaya xaqaaqa dhabta ee meesha ka jira wali miyaa maqasheen dawladda Italy oo Switzerland oo ka wada hadlaya hawada Switzerland sida Talyaanigu u maamuli lahaayeen waxa weeye goroye heeriyeysana meesha way naga soo bixi kartaa ummadda reer waqooyiga waxa aad iyo aad uga muuqata inay hoggaan la'aan jirto ama madax dhaqameed ha ahaato ama dhalinyaro ha ahaato ama mucaarid ha ahaato ama mufaqafiin ha ahaato ama waranle ha ahaato intuba waayo mar hore ayaa waxa mucaaradka la yiraahdaa oo hore isagu gabigiisuba uu go'ay waayo ku sii go'ay xaaladda kaasi Muuse yu ku matala communiquegan oo 4 qodob ku soo qaatay oo imika 2 qodob hore u dul cararnay labana inoo harsan tahay ma wuxuu ku matala Samaroon ma wuxuu ku matala Arab ma wuxuu ku matala Garxajis ma hartibu ku matala ma fiqishini baa lagu matala ma dadka laga tirada badan yahay ayaa lagu matala waxa la doonayaa in duubka la inagu mariyo oo la inooga dhigo wax sharci oo shaqeynaya
keligii ay isaga iyo reerkiisa ayaa magaalada Hargeysa isu mushaharadeeyay wanaagtii arooskeeda iyadu isaga mushaharaday ee ka dhex ciyaartay mandate uu haysto inuu federaal la galo heshiisna ma jirto in yar iyo in badan toona waayo waxa weeye wada tira yar waa minority majority-ga ayaa dadka u soo qaada waxay doonayaan kuwana waxay xaq u leeyihiin siiya ilmadii xaaska weeye waxaan leenugu warwareejinayaa ee meesha ka socda qodobka saddexaad aynu daadegno isdhexgalku afka Ingiriisiga waa reintegration waa dib isugu soo noqosho ama isku milmid in laga dhigo yaa ka mas'uul ah markaa Muuse yuu mas'uul kaga yahay dadka uu mas'uulka kaga yahay waayo ee uu isdhexgelinayaa waayo meesha la joogo ayaanba la isku dhex jirin oo 8 wasiir ee heegada ahaa ee ilmaadeerka Ruma ahaa taliyihii ciidamada ee ilmaadeerka Ruma ahaa madaxweyne ku sheegay ilmaadeerka Ruma ahaa maxkamadii sare dekadii intaas oo isa saaran 12,000 ee shaqaalaha ahaa madaaradii wadanka oo dhan oo ay gacanta ku hayaan bilayska oo hay'adihiisa oo dhan ay haystaan intaas oo dhan ma intaasa inta la shuraakoobeysa Mahegaland oo Muuse matalo ayaa inta kale ay u afduubnaanaysa oo meesha la galaysa oo isdhexgelinaysa macnaheedu waxa weeye inta kale meesha joogta waa buuxi meelaha banaan reeraha waaweyn ee hartigu ka mid yahay ee arabku ka mid yahay ee garxajis ka mid yahay ee samaroon ka mid tahay ee inta kale ka mid tahay buudi maran ayaa leena saaray oo aan fuq jiidaba lahayn halka ayaa leena fadhiisiyay qodobka afraad ee cajiibka ah ee meesha ku dhex jira ee maamul goboleedka rasmiga ah ee laakiin reerka yari ay soo qaateen jiribku ee inta kalena ay ku afduubayeen waxa kamid ah nabadgelyadan la isdhexgelinayo waa nabad sugidda hay'adda intelligence-ka dowladaha caalamka oo dhami way wadaagaan laakiin intelligence Muqdisho laga xukumayo branchna ay Hargeysa uga furan tahay sida branch cirka ah looga furayo Hargeysa headquarter-kii meeshii laga xukumayayna ay uga furan tahay Muqdisho Puntland bay ka furan tahay Jubaland bay ka furan tahay Baydhabo bay ka furan tahay marka arintani maaha arin inagu cusub nabadgelyo markii horeba meesha kaba dhici karayso no justice no peace ayaa lahayd dadkii madoobaay Mareykanka mudaharaad iyo xaq daro nabadgelyo ma dhasho halka waxa idiga muuqda communique-ga isku soo duuduubkiisa dhammaan aroorteeni in lagu iibsaday reer ay u iibsadeen 30 sanadood u iibsanayeen tii ay u soo dagaalanteen ee ay dhex joogteen lafteeda gabagabo iyo gunaanadkii waxaan ku soo gabagabaynaynaa halkan qabaa'ilku dhammaan reer waqooyigu inta uu leeyahay waa inta la degdeg ah la isugu yimaada oo lagaga tashanayo sidoo nin waliba waxa ay u goyso communique-ga meesha ka soo baxay dad iyo dal inta uu leeyahay umba wax lagu wadaaga oo lagu federaaloobaay sida uu itiisa uu la wax qaybsan lahaa ama sida waxa uu ka yeeli lahaa ay go'aan uga gaaraan ummadaasi wax mucaarid ah oo maanta inoo muuqda ma jirto dead end gidaar ayay madaxa ku soo dhufteen waxba yaan dib laydigu maaweelinin baarlamaan baa looga yeerayaa baarlamaanku waa nimanka riyaraac ansixiyay taas ayaa idigaga filan waxa baarlamaanka laydigu sheegayo caqliyan iyo meel kale toona caalamka meel 30 kilomitir oo isku wareega nin degaa uu mas'uul ka noqdo shantii qabiil ee waqooyiga uga weynaa taa lafteedu waa raganimo ay heegadu kuwa kale dheer tahay shacabkan masiirkiisu wuxuu ku xidhay maalin kaliya ah oo dadku dibadda u soo wada baxaan 6 magaalo ee wadanka waqooyiga ku yaalaba oo la yiraahdo Muuse nama matalo hadii kale mar labaad ayuu mugdi geli doonaa taariikhdiina iyo jiritaankiinu labaduba waxaan soo xusuustay wadanka Ingiriiska barkii qaxoontiga ay u soo galay 3 nin oo meel galay maqbaarada oo meeshan eeyda ay ku tartamaan eedan yar cararta lacag baa la saartaa waa lagu khamaara nin baa ADA kamid ah lacag saartay kaasi laakiin waxa eeyda hogaamiye hor cararay hadhow soo noqda AD markuu la cararay ay muddo ordayeen ayuu dib isaga soo noqdo meel urursaday ayuu ku kaajay wallahi waa ka 20 kiilogini la kaajay Muuse uu la kaajay wixii uu heegada u hayay waxay muuqataa dhammaan inay waxoodii markii communique-gu soo baxay ay isku khalkhaleen ay dhanka soo saareen islaantii marwada ahayd ee adna wax allaale iyo wax ay difaacdo garan weyday dhammaan wixii jindagaagay ahaa nooc ay ahaayeen mid yar mid gaaban mid dheer iyo mid gaboobayba ama Sodar Awil Ali Ducaale ayaa kamid ah dadka jindagaagay iska marxaati beenaalaha u furayay ilaha khudbad taariikhi ah ayuu ka akhriyay waxaan ku leenahay Awilow haddaan kooyaabaati goor dambaad timi jindagaagays waa laga soo daalay in badan oo jindagaagays ah ayaanu soo aragnay waxaan taa ugu darayaa 9 jir maanta kursi doonaya
oo doonaya inuu jindagaageeyo Muuse Bixi waa taariikh xumo iyo nasiib darro. waxaan leeyahay war gurigaaga iska fadhi cawlow oo ku cibaadayso. Muuse Bixi ninka la yiraahdaa maalmihiisii u dambeeyay ee dictatorshipka ayuu marayaa. communique-gan ayay iga soo dhex baxday waxyaabaha uu soo qaatay oo dhan, waayo lacag yar uu meel ula cararo uu qaxoonti kaga noqdo. wuxuu raadinayaa weeye politically gudihii iyo dibadiiba uu ka soo go'doomay. marka cimri dhererka kaliya ee Hegaland ka warsan maanta waxa weeye inay federaal la galaan oo ay eegaan bal inta ay meesha idigu sii dhaxayn karayaan ay dadka uga laalaadayaan sida gafanaha. waayo isaga dantiisa koobaad waxa weeyaan danta Hegalandka iyo dadka Heegada. danihii reerkooda ayaana ka galay maanta federaal, maadaama ummadan gudaha joogta ee tirada badan leh aanay sidan ku sii hayn karaynin. ummadda reer waqooyiga waxaad moodaa iyaga laftooda inay hoosaasadan badani ay hoday ay isu bedeleen dhicisku inta birta loo soo sido ayuu go'aa aanay ogeynba halka siyaasiyan la isula soo marayo. haddaan kacdoon shacbi ah oo degdeg ah aan la helin arrintani way idigu shaqaynaysaa, waana idigu soconaysaa. waayo waddankii intaa ballaadh iyo dhumuc leh ka ee waqooyiga ayay marka horeba dad 6% ka ay idigu dhaxaysteen, kuwaas oo federaal u sii raadsaday ayay noqonaysaa. halkii maansadii kama iibiyay Kenya gubayay ka soo kacay ayay maanta xaaladdu maraysaa. hal laga soo baxo xisbiga wadanina waxaan mar labaad ku leeyahay dadka hoosaasada iyo ka daaya indhasarcaadka oo waa ogtihiin waana akhrideen waana la socoteen. markii horena waa idinkii lahaa sharci buu leeyahay inuu Djibouti tagu ummadda matalo, midna ma matalo sharcina oo male. Djibouti waa wadan dictatorship waxa ay inoo goysaana ma jirto. haddii federaal la gelayo reer waliba dhumucda uu leeyahay unbuu ku gelayaa. marka ummadda xaqiiqda u sheega, soona saara ummadda. haddii kale idinka laftiina waaga ayaa idigu bari doona dhammaan ummadda Soomaaliyeed. nooli kulantee.